kala duwan ee caawa joogta halkan waxaan kaloo salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee caawa isugu yimid gobashan quruxda badan leh ee sida quruxda badan loo soo abaabulay loo soo agaasimay guud ahaan guddigii ka soo shaqeeyay waxaan kaloo sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa Paradise Hall iyo hoggaankeeda saaxiibkii Cabdixakiin ugu horeeyo iyo dhammaan dadka miidiyaha ah iyo warbaahinta ee caawa halkan joogo waxaan idin leeyahay thank you heesta caawa aan daawanaynay oo aan dhegaysanaynay oo aan ku luuqaynaynay waxay ka mid tahay heesaha ugu quruxda badan caalamka dadka waxay ku heesaan mararka qaar diimo annaga waxaan ku heesnaa calanka quruxda badan leh ee arkaysaan oo markii aad aragta calamada uu ku dhex jiro indhaha wax ugu fiican qabanayo wuxuu ku yimid dadaal wuxuu ku yimid diig wuxuu ku yimid go'aan qaadasho waxaa u dhintay awoyaashoodii kale aabbayaasheen in maanta aan u dabaaldegno 66 sano kadib xorriyadda aan haysanno iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed qabto waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumadda dowladda waxaad marka hore iga guddoontaan salaan aad u qurux badan oo idinkaga wada mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka waxaan sidoo kale caawa leeyahay farxaddeeda lama soo koobi karo waxay tahay habeen qiimo iyo qadarin ugu leh waxayna ka dareemaysaa heesaha markii la qaadayay annagoo shucuura nagu dhacday waxay muujinaysaa qofka Soomaaliga ah duntiisa karaamadiisa sharafkiisa weliba isaysto oo qurux badan yahay waxaan leenahay marka jiritaankeena inaan ku faano waxaan rabaa marka inaan ilaado waxaa socdo aan bilowno caawa noo bilowdo waxa la yidhaahdo asbuuca xurriyadda ama asbuuca dabaaldega xurriyadda maalinta bisha ay tahay 28 ilaa laga gaaro habeenkii 30 waxaa ka jira KICC bandhig dhaqan bandhig ganacsi bandhig cunno wuxuu bilaabanayaa subaxdii habeenkii buu dhammaanayaa habeenkii markuu sii dhammaanayna fanaaniinta ugu qiimaha badan leh loogu jecel yahay Soomaaliya ayaa habeenkaas tan loo heesayo macnaha inaan u dabaaldegna leedahay habeenka 30 soo gelaysa 31 waxaan qabanaynaa xafladii ugu weyneed ee lagu xushmeyn lahaa dhalashadeenna 66 jirka aan noqonnay waxayna ka dhici doontaa KICC waxaan jecelnahay inaan ku qabanno bannaanka sababtoo ah dadka imaanaya fanaaniinta imaanaysa iyo dadka imaanayo waxaan isleenahay tira aad u badan noqon doonto waxaan rabnaa habeenkaas inaad ka soo qayb gashaan saddexda maalin ay barnaamijku u socdana waxaan ka codsanaynaa inaad tagtaan ka ganacsataan ka dugaamaysataan caawisaan ganacsiga Soomaaliyeed meel ka soo joogo waxaan rabaa inaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dowladda Kenya iyo madaxda ugu sarreysa oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaqan dalkan ay ku haystaan nabad ku haystaan sharaf ku haystaan soo dhoweyn waxaan leenahay waan garab taagannahay waan ku mahadsantihiin soo dhoweynta iyo karaamada aana siiseen waxaan rabaa inaan sidoo kale farta ku fiiqo ganacsatadeenna oo ay nagala joogaan Muslim Business Community caawa oo qaybka ah barnaamijkan waxaan leenahay sharafan noo soo hoyseen walaagaa ka shaqayseen waa muuqannaa meel kastaan joogno qofka Soomaaliga markaad diblomatic tahay su-aasha la weydiin jiro waxay ahaan jirta waagii hore dhibaatada qabta maxay tahay Soomaaliya maxaa ka jiro hadda markaad tagto qofku wuxuu ku leeyahay qofka Soomaaliga waxaan rabnaa inaan wax ka baranno waxaan tegay gobollo ka mida Kenya gobornatooriyaasha markaan la kulmo waxa ugu horreeya weydiiyaan waxay tahay goormee Soomaaliya soo gaaraysaa markan waa sharaf iyo karaamo iyo cizina loo hayo mar raba inaan waqti badan caawo qaato waxay ahayd farxadda aan qabinahayd la wadaago waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee caalamka caawa dabaaldegayso oo u dabaaldegaysa xafladdan qiimaha leh waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ku nool dalkeena gudihiisa ummadda Soomaaliyeed
ay ku nool dalka Kenya waxaan leeyahay hambaliyo calankeena caawa u ciidnay waa xushmaynay waa qadarinay waxaan rajaynayaa talooyinka ay soo jeediyeen odayaashii iyo siyaasiyiintii naga horreeyey inaan qaadano oo naga qayb galo dhismaha dalka mustaqbalka Soomaaliya waa qurux badan yahay mustaqbalka Soomaaliya hadda ay noo bilaabatay waxaan qiyaasayaa dad badan oo aan dalka ku noqonayo ku jiro qaarkiin waqti aan fogeyn sida hadda la sheegay shidaal iyo dhaqaale aan u helaynaa xilliga hadda aan ku jirnay la socotaa ma garanayno ilaa iyo 45 kun oo Kenyan ah ayaa Soomaaliya hadda ka shaqeeya numberkan waa sii banaana macnaheedu waxa markastoo wanaag yimaado ay karaamo timaado waxaan ugu dambayntii mahad ballan u celinayaa mar kale aan ku soo celinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay barnaamijkan iyo abaabulkiisa iska lahaa gaar ahaan waxaan farta ku fiiqayaa safaaradda Soomaaliya dadka iyo tiimka nagala shaqeeyo waxaan idin leeyahay haydin fiicnaa taariikh aan tacaawa aniga waa qiiraysanahay hadal badan ma dhahay waxaan jeclahay entertainment-keena sii socon doonto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you very much.